والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وريال رجي دمر بعض dadkii ma sharafta leh oo caawa ka soo qayb galay xafladan waxaan u celinayaa mahad gaara waxaan ugu mahad celinayaa waxa waaye waqtiga qaaliga aad soo hogteen xafladan ugu timaadeen aniga waxaad moodaa arrintu si gaara inay ii taabanayso xaqiiqdii magaca la igu yeeray dartiis sababtu waxa weeye arrintu waa arrin qaaliya ma sahlana markii hadalkan oo kale la isugu yimaado oo xafladan oo kale loo yimaado macnaa ku jira sulimaatinka waxaa ka weyn ujeedada ka dambaysa oo loo socdo xaggee bay tahay aniga sidaan u fahmay inkastoo aanan barnaamijka si fiican ula socon ujeedadu waxay igu muuqataa meel baa hayaan lagu yahay oo loo socdaa oo la doonayaa in wax laga qabto waa sidaan u arko waxayna u baahan tahay raggeedii inay heshaan waxaana u malaynayaa ragga meeshaa fadhiya oo hogaaminaya inay kuwii u qalman yihiin walaalayaal ma aha inaan iska ammaantabaayo laakiin waxaa ii muuqata horta sideedaba ilaa waxaa la yihi curad reer ku filan ninka la yihi curad reer ku filan saa la yihi curadku reerka sidee ugu filan yahay hadduu balaayo yahay haddii reerka curadku wuxuu ugu filan yahay hadduu rabo inuu tirtiro oo baabi'iyo reerka waa baabi'inaya hadduu rabo inuu dhiso oy reerka cid ka bariyana waa gaarsiin karaa baaliyi marka anagu waxaan caawa u jeednaa curadkii reerka dhisi lahaa oo cirka geyn lahaa ilaahay inuu inoo dhaliyo markaan intaa idhaahdo jubbooyinka waa dhibtooda dhibaato weyn xaqiiqdii dhib weyn bay qabaan dalaayaa ku habsatay hadda ka horna meel fagaaraha oo weyn baanu kaga akrinay khudbadaas innaga oo odayaal badana baanu isugu tagnay oo halkaa ka sheegnay dhibaatada ka taagan shirkaa caawa inuu fadhino waxaan u malaynayaa mid kalaa ka horreeyey oo annagoo dad koobana aanu ka qayb galnay maalintaasna waxaan jeclahay cabdullaahi inuu ahaa ninkii hormoodka noo aha waxaanu isla aragnay in baahi la qabo baahiduna ay ku salaysan tahay jubbooyinka see wax loo qabtaa wax badan bay soo mareen waa soo rafteen intayna meesha fadhida iyo inta idinka baqanba waxbaa ka baqan wixii bay raadinayaan waxaa la yihi xaqiiqda markii la fiiriyo in baa ilaahay maal siinaya darajuu siinaya cirkaasuu maraya goortuu meel gaaro waxbuu raadinayaa misna oo hadii ninku maxaa ka baqan maal waa haystaa darajo waa haystaa maxaa ka baqan baa lihi markuu yuu yahay ninku waa gaar wey marka maxaa ka baqan wax ka baqan iimaan waay horta waa iimaan inaad leedahay ya oo ku qanacdaa waxa yar oo ilaahay ku siiyey laakiin sideedaba laguma qanco cibaadada bar walba inaa badisaan fiican oo iska sii wado hadda waxaa oran lahaa ragga meeshaa fadhiya halaka ka soo jeeda oo caawa shirka inoo ku yeeray cid jaalanjeedi la samaynaysa oo caawa idin orordaysa oo wax idinku haysataa horta ma jirto xaqiiqa weeye hadalka iskama dhahayo laakiin waxaan leeyahay cid wax idinku haysataa ma jirto laakiin magacyo badan baa baxay magacyadii sidee baynu dhiraana idinkaa laydinka rabaa inaa saxdaa annagu garbihiinii baanu nahay waa idin garab taagan nahay weliba waa idin garab taagannahay maaha waa idinla qabanaynaa waa idinla shaqaynayna waxaan jeclahay waxaan u malaynayaa ragga meesha joogaa inay jecel yihiin in hadalka lasoo gaabiyo maadaama ujeedadii hore aan si fiican aan u tifaftirin laygu tifaftirin waxaan kusoo gaabinayaa guulaysta jidku waa dheer yahay wuxuuna u baahanyaa aada iyo aad in loogu sabraa meelaan loo sabrin oo loo dulqaadan oo lagu dhibtoon
meelaha lagu dhibtoon dheefteeda lama gaaro. jubbooyinku waa dal dad badan baa degan oo walaalaaynu nahay, ma hayteena keliya dad badan oo Soomaaliya baa degan waxna ku leh. waxay u baahan yihiin cadaalad, shaqo, midnimo, isu keenid. Sheekh Cabdullaahi Daa'i wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican, aayadii qur-aanka ahayd. walaalayaalow wax ma tarto isiifka iyo isxaaraanka iyo isxumayntu waxba ma taraan. waxa wax tara haba lagu lugo haddii la rabee midnimada iyo wadajirka iyo wadatashiga iyo israaxidda. wax ka fiican lama hayo. qur-aanka ilaahay inoo soo dejiyo munasalkaa arki maysid meel lagu leeyahay kala taga. meel walba waxaa laleeyahay war midooba, war quruxdiina iyo sharaftiina ha soo baxdee midooba baa meel walba ayna kaleene. waxaan jeclahay kuwiina mideeya walaalaha iyaga caawa noo yareeyo allah idinka dhigo, guulna allah idin siiyo. waxaa laku soo gabagabaynayaa guulaysta, guushuna ma lagala soo baxo. guulaysta inkastoo aan islahaa waxaa markii shir weyn baa la qabanhayaa la yidhi, waxaan moodahayay in meel weyn oo meelihii shirarka waaweyn lagu qabanhayo lagu waxaynayo. marka haddana waxaad moodaa dad shoolta ah oo lasoo xulay oo tayo ama lagu soo xulay ama si kastaba lagu soo xulay inay meesha fadhiyaan way ku filan yihiin. muxuu ahaa dadkii badnaa ee tirada badnaa wixii ay qaban lahaayeen oo kale. asalaamu calaykum waraxmatullaahi. mar labaad baan idin salaamayaa. aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta maaragtay sharafta leh ee nagu soo dhaweyseen dadkii abaabulay meeshaan, oon aada ugu mahadinayo. hadda waxaa weeye shirkan waxaa la rabay horta bal aan anugu islahaa marka u horeysa Cabdullaahi Cilmooge oo xog ogaal ah oo meeshan muxuu ahaa arrintan hormuudkeeda ah, bal ha laga jaan qaaday inuu marka u horeysa uu sii daayo madaafiicdiisa. dabadeedna markaas nin walba kii su-aal qaba iyo kii waxay iyo kii khudbadda dhinac ka jeexan lahaa iyo uu muxuu ahaa ka dabagalo. marka inuu gaadhsiiyo su-aal yaroo la weydiinayay sheekh oo ahayd Jubbaland maxaa keenay tirada faraha badan. anuu magaalada jiro la yidhahdaan beri tegey, waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee aan gacantayda intoo geed ka soo goosto babaay cambe anoo nufooni geed. waa nooc min aljanna, waxyaaba ilaahay ku manaysta adduunyadu bay ka mid tahay. anugu qoy baan ka imid meel awda la yidhaahdo, way ku yar tahay geed midha leh oo waktiga aad ka soo goosato midhaha aada ba ugu yaray. marka kamid bay tahay waa nicmooyinka ilaahay siiyey layskugu faano wey. haddii aan ka hadlo waxa keenay isku imaadkan, waa taan afka ku dhiftay oo ah inaynu kor u qaadno calankeena buluuga ee xaggatu dhexda kaga taalo. iminka anu meeshaan ka imida haddaad eegto halkaa maabaa suran. meesha iminka maskaxdaydu taagan tahay waa calaamada buluuga ee calanku halku ku dhegan yahay baan iminka taagana ayay maskaxdaydu joogtaa. meeshaan ka imidana waxay ahayd waqooyi galbeed halka ugu dushaysa wey. su-aashu waxay tahay maxaa iga galay aniga marka halkaa maxaa iga galay? waxa iga galay waxa weeyaan waa ummad walaalahay ah, aabbayaashay lamida, hooyooyinkay, caruurtayda, isku diin, isku af, isku calan. marka waxa laysku qabsay laysku hor yimaadaba waa waxan jirin wey, waa wax baatila wey. marka walaalayaal waxa weeyaan ujeedada halkan isugu yimaadnay waxa weeyaan waa inaynu calankaa kor u qaadno. waxa aada u badan yani inta badanna kona noqotay markii dowladnimadeeni ay burburtay in ninba ninku qoorta kaga joogsan karayo uu kaga joogsado. laakiin waxaan u malanayaa maanta in la soo gaadhay waqtigii taasi dhammaanaysay oo wax walba laga bilaabaya grass root halka ugu hooseysa. waxna hoos baa laga bilaabaya, dusha lagama bilaabo. dusha haddaan wax ka bilowno way duntaa, laakiin waxa ay tahay in hoosta laga bilaabo. in nin walba uu iska diido waxa la yidhahda 4.5 uu yidhahdo war annagu waxaan shaqo ku banayna wax Soomaaliya ku qabsanaysa maaha 4.5. waa in ummad kasta, gobol kasta, qabiil kasta waa inuu xaqiisa helo wey.
bishaaro global box tv wuxuu idinkugu bishaareynaya device casri ah idinkaa qabtiraysa wax walba oo ku saabsan dhinaca tv-ga global box tv waxaad ka heli kartaa channelada kale ah sida universal tv somali channel somali national tv home cable royal tv somali set bulsha tv iyo soma tv oo ayagu ah kuwa ka soo gala gobolka minnesota sidoo kale global box tv waxaad ka heli kartaa channelada warka oo carabiga sida bbc arabic الآن تي في سعودية عربية تي في الجزيرة مباشرة ليبيا تي في يو جنرال العربية أو آد أفر بضم سيدو كل جلوبال بوكس تي في واحد كيلي كرتا بدالة عروتة يولي واحد برشدو ده سيدو مسلم كيدز تي في قرآن ليسونز يو الجزيرة كيدز وأيضا واحد بدالة عروتة جلوبال بوكس تي في وهي كاقب تريا لنع ورك إنجليشكا سيدو CNN International فوكس نيوز MBC بريس تي في France 24 oo English ah iyo waliba BBC World Service Global Box TV wuxuu ka qabtiraya sidoo kale dhinaca entertainment-ga waxaad ka heli kartaa sida NBA TV Major League Soccer HBO Amazon TV iyo waliba Netflix oo aad ka daawan karto muufiyaal aad iyo aad u fara badan Global Box TV haddaba Global Box wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad ka daawatid channelo kala duwan oo isugu jira international Islamic Somali Hindi Arabic iyo luqado kala duwan oo aan halkan aanan ku soo koobi karin haddii aan idin tilmaamo barnaamijyada ka soo gala waxa kamid ah channelada caalamiga ah sida Al Jazeera qaybteeda Ingiriiska qaybteeda Carabiga iyo qaybo kale oo kala duwan luqado kala ku baxa CNN International qaybteeda af Ingiriisiga BBC channelada Soomaaliga kuwooda ugu cadcad waxa kamid ah Somali Channel TV Universal TV Royal TV Somali Sat Horn Cable Bulsha TV Somali TV of Minnesota iyo channel kala duwan oo aanan halkan ku soo koobi karin qaybaha af Carabiga waxa kamid ah BBC Arabic Al Jazeera MBC Rotana Cinema iyo channel kala duwan oo Carabi ah oo aanan halkan iyaguna aanan ku soo koobi karin dhanka caruurta iyagu waxa kugu jira channel kartoona dhanka diinta waxa kugu jira muxaadarooyinkii shuyuukhda Soomaalida ah oo kala duwan kuwa af Carabi kuwa af Ingiriisi waxaad kaloo ka helaysaa diintii oo ay ka mid yihiin tafsiirkii casharo isbuucla ah oo aad kala socon doonto haddaba ha moogaanin device-ka casriga ah qiimihiisuna aad u macquul yahay una baahan internet kaliya oo aad ku xiran kartid any TV oo aad ka controlaysid remote-kaaga haddaba ka gaar inta aan laga dhamaysan nambarka aad ka heli kartid waa nambarka shaashada ku soo qoran ama 612-250-3237 website-keena ah www.globalbox.tv haddaba nala soo xiriir ama soo booqo xafiisyada ama agencies-ka aan ku leenahay Mareykanka, Europe, Canada iyo Asia. Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo maamul goboleedyaduna ha hirgala salaam alaykum نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق البشر لما ذكر كان سويمت هواك يضيعش مرة ماشي سويت بالضمان تيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حويا هذا حويا رجل يهري بجديد ورقة كل سنة halkan kullayba waxaan isugu nimid waxa weeyaan xaaladda Soomaaliya maanta ka jirta iyo gobollada dibooyinka dhibaatada ka jirta iyo xaaladda ay ku sugan tahay anigu kulay dad badan waa isma qaan dambeynaya waxaan ahay reer Jubbada Hoose gobolkaasaan ka imid waa ku dhashay mas-uulna meel kastoo aan joogo gobolkana saad ogtihiin dhibaatadiisu aad iyo aad bay u fara badan tahay
wuxuu noqday gobol la isku haysto, wuxuu noqday gobol had iyo jeer lagu soo duulo, wuxuu noqday gobol aan dadkiisii marna aan la arkayn laakiin jooga dhulka. marka waxaan sheegayaa dadku umaynayn gobolku cidlo yahay, dadkan jubbada hoose ma guuraan, ma cararaan, qaxootiba noqdaan, meelna uma socdaan. marka ninkii yimaada reewaamana la yihahdaa xeer badan baan noqonnaa, xeerar badan baan leenahay. waxaa weeyaan waa la daarinaya, isagaa waqti iska luminaya, isaan iska tegi doona. marka dad badanna hadee waxaa weeye waamo wax badan baa lagu yaqaan. dhulka magacyo badan buu leeyahay. jubba waa la yihahdaa, waamo waa la yihahdaa. waamo waa far marta ilaa iyo afmadow ilaa iyo xeebtay ku dhamaataa. fartaas far waamaa la yihahdaa. dhulkana magaciisa iyadaa wadata. mar labaad imo dhulkan waxaa la yihahdaa jubba, webigaa jubba ayaa dhex mara. laakiin jubba dad badan baana la wadaaga, laakiin ereyga runta ah ee jubbada hoose waxa weeyaan waamo. waama dhaqamo badan bay leedahay, waan idiin sheegnay. waxaa weeyaan xeerar badan baa ka jira. dhulkanna waa dhulkii ugu dambeeyey oo dadka Soomaaliyeed ay qabsadaan. dhulka ugu dambeeyey wey, dhulka dambeeye male. nin af Soomaali ku hadla dhul uu qabsado kii ugu dambeeyey wey, hadday Soomaali gashay dagaal. dhulkaas dad baa qabtay, dad baa soo dhintay, oo yeeshayada afaraad shanaad. marka la qabanayana laguma qaban reer hebel iyo bani fulan, laguma qabanay. waxaa lagu qabtay wax lahada aji, waxbaa la sameeyey. waxaa la aji, ajiyaa waayo waa ninka af Soomaali ku hadla la yihahda. afka Soomaaliga ku hadla saas baa lagu qabtay. haddana xeer waxaa ka jiray yihahda xeer aji. haddii laba reer isqabsadaan xeerkaasaa lagu xukumi jiray. waa xeer ummadan ka dhexeeya dadka af Soomaaliga ku hadla. markaa taariikhda dhulka ninkaan aqoon oo hadda yimid, waxaan leenahay dadkii joogay ka wareyso. adigoo intaad iska dhex timaado aada iska dhex lugan lahayd, bal horta weydii halkan yaa joogi jiray, sidee lagu yimid, sidee lagu soo galay. markaas kadib baad heli doontaa mataqaana geographical iyo historical dhulkan wax ka jira. laakiin annaga haddaan Soomaali nahay waxaa weeyaan dad waxaan nahay hamadul hamad ah, iska indhala. inaan meel iska tagno idhaahdo anaa lahaan jiray iyo anaa leh iyo waxyaabahaas waa waxyaabaha dhaqankeena. waa imaa dhulku waa is yaqaanaa, dadkuna wuu is yaqaanaa. marka walaalkay Cabdullaahi waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waad ku mahadsan tahay sida aada naftaada mataqaana aada gobolkan dhibaatooyinkan faraha badan ka jira aada naftaadii ugu bandhigtay laftigaaga inaad madax ka noqoto ama aada hogaamiso dadka. Soomaali way istaqaanaa, dhaqanna waan leenahay. waxaa jiri jiray suldaan hadda ka hor Soomaalida ka mid ah oo intuu ku wareeray dadkiisa baa wuxuu yidhi war intuu shiriyey wuxuu yidhi war tolkay yaa u sheega waxay raalli ka noqdaan oo in hadalba ka soo celin. nin baa soo istaagay wuxuu yidhi anaa sheegin. markaasuu yidhi sheek. wuxuu yidhi roob iyo nabad lahadhasi waa fadhiistay. markaasaa waxaa la yidhi haye qolooyin baa soo booda. waxaa la yidhi roob buu sheegayo 10 halaadoo rimayaa naga maqan, maraadkooda ku baabin, raadkii alla biig. qolooyin kalaa soo booda waxay yidhaahdeen iyaguna war reer hebel baa intaa naga dilay, intuu dhiigga ku maqan yahay miyuu rabaa in arlada nabad ka dhiga kan, nabad alla kuma siiyo. marka markii dambaa wuxuu yidhi intuu yaabay war wuxuu yidhi yaa tolkay yaqaan. marka waa nin soo taliyey wey, ninka markuu dadka xukuman waa baran doonaa, dadku barnay. wuxuu yidhi tolkay bar wax yaqaanaan rabaa. nin baa soo booda aad iyo aad caqli badan. wuxuu yidhi anaa tolka wax yaqaana ninuu taliyey iyo ninka tuugsaday, labadaasaa garta. Soomaali markaad faqiirsan waad baranaysaa dadkaaga, markaad u tiraysaan waad baranaysaa. marka Cabdullaahi waxaan leeyahay kusoo dhawow, dadkana waad isbaran doontaan. iyo ninka u taliya ayaa dadka baranaya. marka insha Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkaaga allaha garo. annaga rugniyaasha
وامو أيام كملنا ربني ذو وين ونبشر بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبلنا محلي هذا بدل هذا ماشي أي سومالي كسو هيرتو أو محلي هذا سومالي سوجي دايرة كديو مركا وركي أنت تقصو قابلنا يا هذا البلدان نبوحشو هذا اللي يهول بدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa Liibaan Xaaji Cabdullaahi Beeldaaje. magaca Beeldaaje sida loo garanayo dhulka Jubba qayb weyn ayuu ka qaatay xagga maamulkeeda, xagga nabadeeda, xagga horumarinteeda iyo ganacsigeedaba. Cabdullaahi in muddo ah waan isgaranaynay. runtii markii uu ii sheegay in uu danaynayo Jubbaland aad iyo aad ayaan ugu farxay. marna waa ka naxay. faraxa aan ku farxay waxa weeye waa nin u qalma inuu ka soo baxo mas'uuliyadda iyo responsibility-ga la imaata. waana ka naxay oo waxaan uga naxay waa ninaan jeclahay oo aan rabo had iyo goor inaan arko oo xafiiskiisa iyo gurigiisa iyo aan ugu tago. marka nin diyaar u ah oo ka soo bixi kara hawsha inuu waqtigiisa iyo maalkiisa iyo timekiisa u huro, ilaahay aan ku garab galo. waan u ducaynaynaa ilaahayna hawsha. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin mas'uuliyad qaaday eed qaad. waxaa la rabaa in Soomaalideennuna dabeecad waxaan ku leenahay qofka in markaan aragno horta aan ku salaano inta criticism-ka ah iyo eedda iyo inta xun. waxaan ka jeclaan lahaa qof walba intuusan wax criticize garayn inuu ka hormariyo inta fiican iyo waxqabadka iyo wuxuu diyaari u yahay oo u qaban karo gobolkaas Jubba. anigu runtii Cabdullaahi waxaan ugu congratulate garaynayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay mas'uuliyaddaas uu rabo inuu ka soo baxo. waana ku taageerayaa 100%. anigoo u hadlaya dhammaan familkayga Cabdullaahi ilaaha kula garab galo. annaguna waa ku garab taagannahay wixii hil iyo hooba ah. aniguna aan ugu horeeyo waxaan leeyahay 100% waa ku taageersanahay. ilaahayna ku saalo. waxaa mahadla ilaaha weyne sukan keenay. waxaa khayr allaha siiyo dadka soo agaasimay arrintan. waxaa weeye arrintan Cabdullaahi Cilmi Mooge iyo inta la mid ah iyo inta rabta dalka inay wax ka qabato dalkeenu waa u baahan yahay. waana arrin fiican munaasabadan iyo wixii la mid ah. Cabdullaahi iyo ragga odayaasha ah oo hadlahayay oo Jubba maxaa dadka uga dhumay. Jubba waa dal Soomaaliyeed, waan wada leenahay. wuxuuna fiicnaan iyo wanaag iyo sharaf yeelanhayaa markii la wada dego, la wada beerto, la wada horumariyo, la wada hagaajiyo. qoys kaliya iyo dad kaliya waxba quruxa oo leeyahay ma jirto. waxa weeye marka dad badan runtii kullay way wada degaan meelahaas. marka aan iska dayno bal deegaan ahaanta iyo hebel iyo reer baa kali dega iyo heblaha degtee aanu niraahno waddankanagii see wax uga qabanaa, seen u horumarinaa, seen wax uga maaragtay uga dhignaa, seen u soo qaadnaa. taa aanu ka hadalno. taasaan jeclaan lahaa inay fiican tahay, na wada anfacayso, na wada waxna tarayso dadka Soomaaliyeed. waa aragtaan guryaha aan ku noolnahay ee Maraykanka 10 guryo isku meeran madow iyo cadaan iyo baroon baa ku jira. qof walbana gurigiisu ku jira, biilkiisuuna qaataa iyo wixii asagu u xoogsado. waddankana horumar iyo sharaf iyo wanaag baa ka soo baxa. inta marka yaanaan isqoqobi hay gobolada iyo qoqobka iyo kala qaybintu waa waxa na qaribay, waa waxa na dhibay, waa waxa dadkeenii dhibaatada aad aragteen muxuu hayto ku sameeyay. waliba ragga waaweyn oo odayaasha ah waxaan leeyahay khayr allaha idin siiyo. waan sii soconaa intaynu waaweyn. qaatimo iyo qayb iyo sharafna inaan ka tagno way fiican tahay. waxaana ka mid ah qaatimada iyo qaybka inaanu dadkeena iyo dalkeena isku mid iyo isku meel aanu ka soo jeedno oo wax ka qabanno. markaasuu sharaf iyo wanaag yeelanaya iyo cadaalad.
waxa weeye marka meel kastoo dalkeena ilaahay waxaan uga baryeynaa dhibta in ilaahay ka qaado wixii dib wadana oo muslimana xaqa allaha tuso wixii muxuu ahayd wanaag wadana ilaahay kuwii ku guuleysta oo ka mid yahay wiilka hadda uu istaagaya oo raba inuu wax ka qabto Cabdullaahi Cilmi Mooge ilaahay waxaan kaaga baryeynaa adiga iyo wixii la mid ah oo dalka wax u qabanaya guul iyo qayr iyo wax wanaagsan baan ilaahay kaaga baryeynaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. bishaaro dadweyne waxaa laidinkugu bishaareynaya qalab casri ah qalabkaas oo kuu sahlayo barashada qur-aanka kariimka qalabkaas oo loo yaqaano qalankii akhrinayay qur-aanka amaba qur-aan pen qalinkaas oo aad ka heli karto 7 qiraa'a oo kala duwan shiikhii aad doonayso ama kaad jeceshahiba faa'iidada qalinkan casriga ayaa waxaa ka mid ah isaga uu ku barayo waxyaalo aad u fara badan waxyaalahaas oo ka mid ahay hingaada luqadda carabiga faa'iidada qalinkan casriga ayaa waxaa ka mid ah iyadoo aad ka helaysid tafsiirka qur-aanka ah isagoo isugu jiro luqado aad iyo aad u fara badan luqadaasuna ay ka mid tahay luqadeena hooyo ee afka Soomaaliga sidoo kale qalinkan ayaa wuxuu ka haqabtirayaa waxbarashada luqadda carabiga هنا جيد جدا It's so great الجو هنا مريح The weather here is so good haddaba ha moogaanin barashada qur-aanka kariimka qalinkaas casriga ah oo qiimo jaban waxaad ka heli kartaa Central Global Services oo ku yaala suuqa Carmel شكرا كل جيل waxaan rabaa horta inaan idin salaamo salaanta islaamka idinku salaamo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa kadib shirkan quruxda badan waxaan rabaa inaan mahad celiyo rag iyo dumar jaaliyadda Minnesota nagala soo qayb gashay maanta rag iyo dumar dhalinyaro rag iyo wiil iyo gabadh muxuu ahaayey waxaan kaloo si gaar ugu mahad celinayaa guddigii rag iyo dumarba ka koobnaa wada shaqeynaynay aniga personally soo abaabulay arrintan wacyigeliyey jaaliyadda countiyada oo dhan Minnesota u suurageliya maanta inay waqtigooda qaaligaha jaaliyadana isugu timaado iyo raggii ugu cuslaa qoomeedaha ama ismaamulada ama salaadiinta aynu garanayna magaca weyn leh aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo mahad iskale oo ilaahay baa mahadle aan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u diro ciidamada frontiga hore ku jira uu madaxda u yahay Axmed Madoobe Maskamboli ciidamada kale ee dowladda dhexe taliyaheedu saxadiid iyo ajsanaa saxadiid guulaystaan leenahay muxuu ahaay ku guulaysta
waa dagaalka aada wadaan u wadaan shacabka inaad ka horeysaan argagixisada meeshaas hadda ay ku harta isugu soo aroortay goboladii kalena laga soo xoreeyey. waxaa kaloo u dirayaa baan dhalinyarada la marin habaabiyey oo lala gooyey oo al-shabaab la jirta ama muxuu ahaayey beelaha qaarkood oo hadda weli ku hadhay saboortigooda ama ayidaadooda inay isgartaan in beri la xisaabtami doono. nimankaan waqti badan uma hadhin in la xisaabtami doono oo miis la isugu imaan doono. marka beelahaas inayna ayidaada ay ka baxaan ayidaada iyo waxaas muxuu ahay caawinaada ay caawinahayaan argixisada. dhalinyaradaasuna khaladkii waa laga cafinayaa inay ka faa'iidaystaan oo hadda kuwa badan base wiigan iyo wiiga hore isu soo dhiibaan ciidana wax yeeli mayso. waan dareensanay la marin habaabiyey. intaas ayaan dhihi lahaa. ha noolaato jaaliyada jubbooyinku, soomaali weyn hamidooda, ha noolaato Soomaaliya. okay, waxaa keentay shirkan oo baahidiisa igu dhaliyey. waxaan ka horta aan rabaa inaan ka cudur daarto jaaliyadda. waanu kulligano intan keliya maa hadda fadhido meeshaan, laakiin rag badan oo maqan yihiin, gabdho badan oo maqan yihiin. laakiin intanadii istustay markaa inaan isu imaan karno, wax bilaabi karno, ayaa waxaan isniri wax bilaaba. marka horta waxaan ka cudur daaranaynaa. kolley waan ognahay in qoorta nala soo qaban le maxaad waxaan uqarsateen noogu sheegi weydeen odayaasha iyo gabdhaha aan nala ogeyn inaanu muxuu ahaaye go-aanka anagu qaadanay ka raalli ahaada. waxaan islahayn wax wanaajiya waxmay ismaanaan lahayn. marka annagaa qaadanay go-aanka. wuxuu igu dhashay go-aankanu waxaa laiga casumay London privately anigoo shaksi ah. dib baan isu dhigayay muddo bil ku dhawaada isagoo tigirka weliba 700. waxaan islahaa ama ururo kale oo jiro oo beeshanu leedahay ama beelaha leeyahay ay tagaan oo idinka qayb galaan oo magaciina iyagoo wato huwan muxuu ka qayb galaan. dib baan isu dhigayay. waxaan lahaa degdegin. maalintii u dambeysay berri oo kale shir ku dhaca ayaan goostay ticket 2 jibaar oo 1500 oo sababta waxaan isiri okay wax baxay ma jiraan. waanu dareensanaa inayna beesha ugu dad xunahayn. waan dareensanaa inayna beesha ugu dhul xunahayn. waan dareensanaa inayna waxaasoo dhan jirin. laakiin nasiib daro ninba nin buu ku hadlayay, gabar bay ku hadlaysay, cid u garmatay iyo cid muxuu ahaayey iska xil saartay mayna muuqanin. haddaan kulligeeno iska dhaqano carabtanada iyo guryahanaga iyo shaqooyinkanaga, waxay la tahay de in ay dayac badan uu jiro. waa dareensantihiin dayac badan uu jiro. nin baa wuxuu weydiiyey war cabdilaaho wax badan baan ku leyn hore u dhaqaaqe intaas sano 10 sano ka hore maxaa maanta ku kayey. waxaan ku idhi cabdi baa leedahay Carmel area, maadaamaan areada u badnaa Carmel. waxaan ku idhi cabdiow 10 goor ka badan baa laygu yeeray dagaal sokeeye. waad ogtahay nin walba beeshiisa waa u yeeraysaa. ninkii ciidan ahaa ciidan kordheel baan ka gaadhay kaala dagaalgal. waxaan isweydiiyey baan ku idhi markaan waxbarashada aadahay ruush iyo maraykanba oo ciidanka waxu baranayay, canshuurta wax lagu bartaa taxiga qofka lagu diraa. beeshaadii qoyskiinii baa taxigan arooriye orod wax kusoo baranay ma dhihin. Soomaali weyn bay ka dhexaysa canshuurta kusoo bartay. waxaa kalaan ku erooday lowsantahay cabdi oo dagaalo badan baan la galay dowladaha aan dariska nahay waagii aanu dowlad ahayn. ciidankii garbehiga ka dagaalamahayay ma uusan ahayn ciidan aanu isku jifanahay ee waxaa ciidan Soomaaliyeed oo jilowga ku jiro. marka uma isu qaawinayo in aan dagaal sokeeye dhex galo, waayo waan ogahay dagaal sokeeye inuu dhammaanayo. taariikhda oo dhan baa dagaal kasta oo bilowda wuu dhammaadaa. laakiin qofka wejigiisa ku lumiya iyo sumcadiisa oo meel la istaajiya waxa weeye wuu ka qoomeeyaa inaad dagaal sokeeye aad dhex gasho. taa waxaa maragma doonta ka shirkii u dambeeyey Garowe 1 iyo 2 waxaa la hirgeliyey nin warlord ama dagaal sokeeye galay dib dambe inuu si xil Soomaaliyeed u qaban. waxaa markaa dhacday markii London aan tegay yaa waagi ugu bariyay prime minister kala kulmay
garowa muxuu ahaayey cabdiraxmaan faroole madaxweynaha puntland baan la kulmay, waxaan la kulmay sheekh shariif. waxaan markaa aan dareemay arrintii la iigu yeerahayay oo ahayd la tashi ciidan arrin ka weyn. hadda anigaaba beeshaydii iyo jubbooyinkii iyo jaaliyadii dhammaan wax matalaya oo meeshii jooga dadkii intaa la ekaa ma jiro. waad dareemaysaan dadkii ishabeeyey ee ismaamulay sida puntland, somaliland, galmudug, intii habaysnayd way joogtay meesha, kama inaa jaanis xumayn. waxaa markaa ay keentay soomaaliya waad la socotaan maanta ito dowladdaha waxaa ugu dambeysay 22 sano. dowladdaha markaan leeyahay central government waa dowlad totalitarian baynu laynagu macneeya inaan ahayn, inkastoo gaalada dictatorship iyo waxa ay tiraahdo. waxaa weeye ujeedadoodu wax walba dowladdaa bixisa oo caawisa oo dadka uu ka dhowraa, waxbarasho hadday tahay, shaqo hadday tahay. hadda maanta ito constitutionka waxaa laisku raacay federalism. federalismku waa taqaanaan imaaraadka oo kalaa kamid a, waa uun gaashaandhigga iyo lacagta iyo arrimaha dibadda unbaa idinka dhexeeya. wax kaloo idinka dhexeeya ma jiro. lacagta monetariga, arrimaha dibadda inay midaysan tahay iyo muxuu ahay waxaa idinka dhexeeya gaashaandhigga. wixii kale marka innagaa mas-uulka ah, ninkii ismaamul samaystay. waxaa marka isweydiin leh oo meeshii timid aan isweydiinay xilli kala guura oynu wada ognahay oo bishii 20keeda ahayd adigana dib u dhacday dastuurka in la baasgareeyo, juunna in la magacaabo embiyada ee Soomaaliya, julayna la doorto baarlamaanka marka la doorto prime minister magacaabo, madaxweynuhu magacaabo. dowladdu August ma dhaafayso in ay totally soo afjarto. maxaa markaa yaalla meesha? waxaa yaala xilligan kala guurka oo la wada socotaan in deeqdii saad ogtihiin 22 sano aynu qurbaha joognay, intaas ma aynan joogsanin scholarshipkii waxbarashadii. intaa way socotay, intaa way socdeen horumarintii UNT iyo relief agencies-ki employment-iga ay bixinayeen, contractors-ki. intaa waxaa qaadanayay xamar iyo ninkii ishabeeyey, muqdisho iyo ismaamulkii ishabeeyey oo is-organize gareeyey baa ka faa'iidaystay oo qaadanaya. waayo aanu dadaalayna annagu soo ma lihin dad, soo caruur ma lihin waxbarasho u baahan, soo beeraley ma lihin horumarin u baahan, soo xoolo dhaqato ma lihin muxuu ahay u baahan in xoolaha laga caawiyo iyo ceelasha, soo ma lihin horumarinta isbitaalada oo dumarkii iyo muxuu ahay caruurtoodii nursingkii iyo isbitaaladii iyo clinicii aawe. waxa weeye ciddii markaas moodaysay Soomaaliya inay dowladda tahay oo isdhihi jirtay waxaa laga sugayaa xamar wax laga sugayaa ma jiro. waddanku waa federalism, waxaad soo dhacsatana waad soo dhacsatay, wixii ku dhaafeen way ku dhaafeen. mitaalka waan bixinayaa, kun bay hadda marayaan Turkiga inta bixiyeen. xamar markaan joogay baa 500 ay ku dhawaaqeen ardaya jaamacada inay siinayaan biilkooda iyo scholarship-kooda, haddana 500 bay ku dareen kun. wax ka soo gaaray jubbooyinka haddee nin uu ku tagay abti iyo hawaryar iyo ay gacanta qabateen mooye ma jiro. waayo dad habaysan oo meel loogu aado leh oo ilan laga gala leh. dowladdu way taqaanaa markii ay tiraahdo Somaliland xataa iyadoo muxuu ahaaye waan goosanaynaa leh qaybtanadina si qaab lagu siiyaa jirta, lama diidi karo. dowladdu way taqaanaa say Puntland ku siiso oo ay archibay qoranaysaa, waxay keenaysaa miiska dushiisa. dowladdu way taqaanaa galmudug say wax ku siiso, laakiin dowladdu ma taqaano dad muxuu ahaaye la haysto iyo muxuu ahaaye dad isku haysta dhul iyo dad aan garanayn leadership lahayn iyo dad meel laga soo galiya meel laga baxaan lahayn. saasaa markaa waxaa gaara ay u noqdaan fraction waxay dadku yidhahdaan, ama uu MB nin ahi uu yidhaahdaa warshaxaad. waad garan kartaan baarlamaan un level baarlamaan war hebel igu dar. taasaa marka xaqiiqadu ay tahay annaga nagu kaliftay in aanu
guntiga dhiisha isaga dhigno sidaynu af soomaaliga dhihi jirnay ya waa kii sayid maxamed abdillah xasan allahu naxariista yiri guntigaan marorsaday miyaa labada loo geystay ya gel haddii aan foorin miyaa gel ka qaad yani qofku marorsi waxaan dhihi jirnay markaad relax iska tahay iska dabacsan tahay laakiin markaad guntiga meesha isaga dhigto ama suunka haddaada ku herato rag iyo dumar waa marka aad ujeedo leedahay oo doonayso inaad meel gaadho waxaa idiin soo haray arrin aan idin raba inaan idin taabsiiyo qolo walba oo ismaamul leh oo meel degan joogta carruurteeda dhaqan celis baa la geeyaa guri fiican bay tagtaa waxaa igala jooga wasiirka awdal meel ka fiicani ma jirto boora baa la tagaa ilmaha dhaqan celis loo geeya af soomaaligii iskuulaadii jaamacaday ka wada dhisteen ilmihii wax yar baa ka bedelan minneapolis ka badaya xageed geysanaysaa adigu xageed geysanaysaa maxaa baad geysanaysaa ma beledweynaad geysanaysaa ma ceelbuur baad geysanaysaa anu waxaan ahay nin jeclaa unionka waan ka shaqeeyay soomaaliya intaan idin sheego dhan magaalada ka shaqeyna male laakiin oo dadka unionka iyo markii wadanku mid ahaa jeclaa baan ahay laakiin waxna waa reality waa xaqiiqo waan laga carari karno waxa maanta yaala waxna waa wax shalay jiray waxa maanta yaalay ciidama aqaansaad ugu joogi karto samreeb intaad ilmo u dirto ugu nabadgeli karto waayo shabaab iyo maalin walba waxaa isku haystaa muxuu ahay sunna waljamaa marka dhulkiini waxaa idin diiday jubbooyinku waxay la diglaayeen manila waa nin sheegan waaye ninkii lahaa oo sheegan waaye iyo nin aan lahayn oo sheegtay waayo waxaa dhankan baa jira lalama yaabo dumarka hadduu walaalkaa dhinto dumarka waa la dumaalaa dumaashu haddaad u imaan weydo on time kuma sugayso dumar kuma sugayso odaday midaad gursanaysaa waa la mid dhulkii haddaad sheegan weyda odaad mas-uulka ka ahayd ood usoo noqon weydo in cid kale oo looga habboonaa ay maamulayso oo adiguna aada daawasho meeshaas ku daawanayso waxaa la qiyaasay in 250 ilaa 200 oo kun oo qoys ay Soomaaliya arday qurbaha ka tagtay from North America, Europe, Australia, Middle East, the East Africa, Malaysia, India, iyo Middle Eastiga waxaa ugu badan baa la yidhi 60% Kenya qaadatay waxaan qiyaasnay marka average waxaa la qiyaasay nin reerkiisa 60 ku bixiya reerkiisu badan yahay waxbarasho u baahan yahay reer 12 bilood iyo nin ka u yaro 15 baa average noqotay 25,000 labada boqol waxay noqotay 500 milyan 500 milyan haddii ay dhulkaa ku soo noqon lahayd Soomaaliyeed kama soo qaadi idinku inaad 50 milyan ku leedihiin oy sirkaleyn garayso lacagtaas dhulkiina xamaaligii kii meel wageenayay kii kuugahaa kii maqaad furanayay kii dilaalahaa 50 milyan ma u malaynaysaa dadkaas in lacagii soo dileen dhihi lahaa ma dhehen dowladuhu ma u malaynaysaa dariskeena laa inay rabaan inaad noqotaan wadankiina kusoo noqotaan oo iscabaydiin tumaan oo noqotaan oo la yidhaahdo allale waa leen dejiyey kusoo fariista kursiga ma dhacayso waxaa la rabaa iyadoo la ixtiraamayo UN-ta daris wanaagga kulli waxaasoo dhan in aynu fahamno Soomaaliya indhahu mali waa ka go-ayna Somaliland oo kale waxay leedahay anu waan madax banaananaya awdal oo kale waxay leedahay no anu unionka kama go-ayo Sool oo kale iyo cayn waxay la baxday muxuu ahay khaatuma la baxday waxay leedahay unionka raba dispute baa ka taagan nina uu ka sokeeya nina uu ka sheeya Hargeysa boram way ka sheeysaa geographically marka waxaan qabaa inagu asadad Soomaalidu way wada digtaa Soomaalidu dad baa waxay leeyihiin dhul baa la isku hayaa maamulaya farahaas oo kale way bani aadam dadkana run baa loo sheegaa xaqiiqada lagu dhaqaa islaamnimada qabta waxaa xun qabyaalada qabiilku ma xuma islaam baa nahay quraanka ilaahay ku sheegay wixii ilaahay sheegayna wax wanaagsan weey litaarfu baa qabiilka isku aqoonstaan laakiin waxaa xun in aad qof islaam ah oo kula dhashay rag iyo dumar walaalka qabyaalad wax u geysato waa agli
so taasaan waxaan inagu waddanka aan joogno New York waxaa laga helay school Brooklyn ku yaala elementary 83 luqo 83 languages waad dareemi kartaa 83 luqo ilmood oo si yimid diversity wax conflict iyo dhibaato ma jirto nin walba loo hadlo ku jiro guriga waxa weeye marka taas waxayna baraysaa innaga dadkan 20 sano ka badan jooga diversity-ga waxa loo yaqaan wada noolaanshaha inaan garanayno oo wada noolaanshuhu ka fiican yahay keli noolaanshaha marka nin kasta oo isla xuquuq baa kugu seegaysa kuma seegayso mid laakiin meesha ka warqab faraha markaan ku leeyahay yaa kala dheer saasaa loo kala badan yahay meel walba la dego beledweyne waa laga helayaa nin walba laga helayaa anta tago jirib walba laga helayaa hataa awdal ninkeen baa laga helayaa boorana ogada bulshada laakiin macnaheedu ma aha in uu ninkaasu isu sharaxo beledweyne wax ka maamulaya it doesn't make sense ma sameynaya waxaa sense sameynaya in ilaa diversity meesha waa disku degaa laakiin la yidhaahdo okay hogaanka mar walba waxaa mas-uul ka ah dadka majority-ga midda inagu aan ku fail garownayn qaadan weyne hawey leadershipkii aan lahayn booskiisii baan banaanay meel walba kur bay leedahay haddaad aduu ka dhawrayso inuu ninkaad uga badayd liir gareeyo dee ma liir garayn karo ma hogaamin karo aduu ka dhawraya marka naftaadiina danbaad ka gashay naftiisiina danbaad ka gashay waa tii ay diintu lahayd walaalka u helay hadduu gardaran yahay hadduu laa gardarin u heli labadaba aday يعني إلهي بدو اللي يقون هذا سود له this is reality خلافك يوحاس وعمينه dadku laakiin waa inuu u soo jeesto weeliya gaban in uu wax dhisto dowlad federaal ama central way dhamaatay ilmaheena innaga mas-uulka ah in aanu u samayno meel ay ku xisaabtamaan oo kula xisaabtamaan qaybtoodii inay Soomaali weyn ka soo dhacsadaan waa runtiis suuriya wixii ugu yaabadnaa oo maamulo kala duwan baa laga sameeyay Ohio halkan Kenya inkastoo ayna shuruuda buuxinin aan idinku celiyo shuruuda dastuurka waxa weeye in laba gobol iyo ka badan ismaamulku leeyahay shardi kale lagu daray gudaha laga sameeyo ilaa ma dooble laga sameeyo hadka laga sameeyo laakiin wadankii in laga sameeyo marka shuruuda horta waa in la buuxiyo oo very important ilaa waxaa rabaa haddii uu jeebka wax kala soo baxo ama hotel ka sameeyo ama resort ka sameeyo meel dalxiis waxay noqonaysaa waxaan shaqeynin marka innaga waxaa la yaab leh in qof jubbo maamul ismaamula ka socda ama qoroobe inaan looga yeerin shirkii wadatashiga xamar anigu waan joogay xamar markaa August 11 baa September 2 buu dhawaaday wadatashigii xamar loogama yeerin garawa 1 iyo garawa 2 loogama yeerin oo meelihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka waddanka oo dhan ba lagu habeeyey shuruucda dhan ba lagu habeeyey in la dhimo ma ahayn marka la yiraahdo baarlamaanka 220 laga soo reebo 4.5 kan in la dhameeyo in muxuu ahaay wiilka waxa la siinayo dumarka in you name it in madaxweynuhu halka la doorto in prime minister xilliga la doorto waxa la dhameeyay wax walba loogama yeerin shirkii company laba dawlad isugu timid loogama yeerin ee London taas maxay ku tusaysaa inaan lagu maqnayn maashuuqa ku adina marka waxaan rabaa inaan ku noqdo xagga markii la yiraahdo daris wanaaga iyo wada tashiga iyo ka qaybgelinta iyo Soomaalinimada anagu waxaan aad uga hawlanayn intii dambe ciidanka gudaha ku jira khayr laas iyo caawan inuu soo hadla laga yaabo shaqada madaxdu yahay ugu seexanaya roog baadka wajiro kanaacada u qanayso hadda iyagu waxaas leeyihiin ilmo leeyihiin indhago kala wey waxaan ku talagalsanahay in aan voice u noqono cod u noqono in aan vacuum abuurmin oo
markii waxa la qabto uusan noqonin anarkii waxay gaalada u taqaano meel aan loo ka jirin oo dadka lagu tuso waxaan lagu kalifay in aan kacdoonno waxa weeye anigu musharax ma ahayn waa noqon karaa meeshaasaan lagu magacaabi karaa federaalkan tegi karaa boos xaq baan u leeyahay inaan raadsado corneel baan ahaa 22 sano ka hor laakiin pointigu waxa weeye dadkan horteeda fadhiya kuwa badan oo badan iyo kuwa aan cod lahayn salaanta caliga geesood ku raacanaysa ee shabaabku u diiday inay riyaheedii dhaqato cod ma laha inay helaan cod inay dad noqdaan inay ismaamul helaan maamulka ninba laba wadi kala sano 3-4 mid wada Abdullahi Yusuf Babil ya Allah u naxariistay bilaabay Puntland oo 6 sano u xidhnaa hawsha yaa bilaabay Puntland maanta maxay maraysaa 3 nin bay maraysaa Prime Minister Ahmed waxaan ku wareejinayaa gadaal baan ka damsanay Ahmed Madoobe oo taqaanaan taliyihii ciidanka Ras Gamboni ayaa inoogu jira speaker phone-ka la gelinayaa kadib baan sii wadanayaa few minutes marka dhammaan salaam oo caan ah waxaa loo yaqaanaa oo kale crocodile bird na waa loo yaqaano shimbirtii yaxaaska waa shimbirta keliya oo yaxaaska heshiis laha yaxaasku markuu hilib ka dhirgo kiisa oo dhan hilib wasladaha kale oo aada u badan balaan ilbooye banaanka usoo baxaa afkuu kala qaadaa marka kaligeed baa gasha wax kaloo isku aamini kara oo shimbirta ahayn ma jiro Egyptian plover baa la yihahdaa marka waxay ka dhamaysaa iyadoo raaxaysanaysa oo ku degaysa oo gawsiisa ku degaysa iyay muxuu ahaayey ka dhamaysaa hilibkaas isna wuu nafisaa iyana way qadaysaa mitaalkaas waxaan usoo qaatay gaaladu waxay leedahay wax la compromise dadka waxaynu baranay halkan wali magacyo badan baa concession in la sameeyo in muxuu ahaayey yani tit for tat magacyo badan bay uleeyihin adna waxaan qaado adna waxaan qaato afrika lagama yaqaan afrika waxa weeye dhumbuur baraysta waxa weeye halkan aan joogno waxaan ka faa'iidnay dadku inuu miis ku wada hadlo qoryahana xaggaa la dhigo marka hataa hadday kaliftay xaaska afkiisa inaan u galno nabadan raadinayno waan raadinaynaa waxaa kale oo mitaal ahayd nin baa wuxuu rabay inuu sool bay ka dhacday dagaal colaad qabiil inuu aada u joojiyo isku dayay dadka hore wuu caqli badnaa marka baa laga dilo wuxuu yidhi magtay u diideen wuxuu yidhi maadaryaalo geel haddaad noo weydeen lo nagu siiya magta haddaad lo noo weydaan ari nagu siiya haddaad ari weydaan harag nagu siiya oo subag nagu siiya wax subag weligiin ku cabira ma maqashay intaa ninka wuxuu lahaa adbaaji socda waa compromise marka laga hadlay ninka u diiday subag iyo harag iyo ari inuu wax ku bixiyo soo maaha nin colaa doonay marka waxa weeye qofka wuxuusan lahayn hadduu raadiyo wuxuu gelayaa defensive position waxay gaalato difaac buu gelayaa sanaba qabiil aan meesha looga badan yahay amaan meesha degaan ahayn baa axduway difaac buu ku jirayaa qofkaasu miyir male kale meeshaana ku dheganaada mooye waxaan markabnaa soomaali weyn soomaalidu waa wiil isdhalay iyo gabar iyo dadku saas ku nahawe laakiin maanta waxaa la marayaa heer xaqiiqada la isu sheego xaqiiqaday tegayso hadda waa kan sheekh axmed soo hadlay gobol baan dhigaynaa waa eri weyn soomaali weyn baanu yeelina sidii warloodhadii horena kaadi baan usoo cabay iyo waxaas iyo sheekadaas ma taagni buu yidhi waa hadal weyn macnaha anugu maaha khasab meesha inaan taga weeyo language marka waxaan kaga duwanahay rag baa haddaa ay sheegay 12 ismaamul goboleed ee jubbooyinka ee meelaha looga dhawaaqay musharax uma nihin musharax waa u noqon karnaa laakiin halka kuma dhiseyno waxaan u ololeynaynaa in laga saaro nimankaas terroristaha ah waddanka oo wax ina wada khuseeya
beeshii marka maanta oo kale ilaa waxaa rabaa dheeftan in la qaybsado dhibtan la qaybsado maanta oo kale waxay u baahan tahay kuma dhana beelo inaad loo socotaan baaqaan dagaalka maanta oo kale yaa loo baahan yahay inaad ciidan keento ood saad keento ood haddaad wax kala keenin emotional wixii la dhihi jiray muxuu ahay laabta inaad ka support garayso aad keento waayo hadda waa cadow inaa wada haysta waa cadowga ugu xun dilka kale idinku eegtaane dhirtaad ogeedeen xaalufiyey dhirtaad ogeedeen ee jubbooyinka lagu dhihi jiray vertan xaalufiyey ma la socotaan dowladdu markay joojin weyday dhirtii in ay UN-ta u aaday oo ka ansixiisay Soomaaliya geedaheedana la gadan karin dhuxusheeda la gadan karin waqti fog maa 3 bilood laga joogo ay ka ansixiisay qaramada midoobay Soomaaliya dhuxusheeda ma gadan kartaan oo Dubai la siiyey oo Sacuudiga la siiyey oo Yemen la siiyey si kaloo loo joojin karin ma jirto hadda yaa ka iibsanaya marka waa ka iibsanaya male marka waa in meel iska dhigo waxaa iyaalay hadal jacayl looma hadlo waxaa u baahan keliya inaan rabaa inaan xasuusiyo dastuurka waan rabaa inaan kusoo khatimo dastuurka guddi baa loo saaray 3 sano ku dhawaad cid si fiican caawa u og dastuurkaas meeshuu marayo ma jirto hadba group baa meel la gala hadeertaan way yimaadeen 3 weeks ago magaalada niman baa isoo waa telefono niman baa jooga dastuurki warbahalkaa la dhudhuumanaysaan anugu ma rabaan idin eemaan maayo dastuur waxaa la yidhaahdaa ummadda in la dhex dhigo oy ka dherigto oo dhinac walba ka egto oo digesti garayso aloosha geliso digestionka oo kale oy tiraa okay Kenya ka dhacday oo daawanaynay 3 sano lagu dhex waday waxaa la baasgareeyay 2011 marka ummad kasta oo dagaal sokeeya soo marta waxaa kala badbaadiya oo qura dastuur fiican oo solid ah kuwan aan joognaa ka mida United States wax dambe oo isdilay ma aragteen civil war ka dambe soo sawdkii laga adkaaday uguma badna madaxweynayaasha oo loo taqaanaan waa sidaas waayo war waxaa weeye albaabada garaac ninka ku dooranaya haddaad cod isku hayso dadnimo albaabada garaac kasbo dadkii waa kaas marka waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed Sheekh Shariif madaxda u yahay Prime Ministerka Abdiwali Algaas uu Prime Minister u yahay uu Sheekh Shariif kale Hassan u yahay Speaker House in reality-ga lagu soo celiyo runta in shacabka la siiyo chance ay ku calaliyaan waa run colaadi way jirtaa meel walba lama gaari karo laakiin in gobol walba loo diro oo ciidamadiisa loo diro oo uqaashisa loo diro oo dibadaha loo diro dibaddaa loo badan yahay East Africa la degan yahay oo markaa wax midaysan oo heshiis lagu yahay oo aan la qarqarinayn la sameeyo wuxuu inaga caawinayaa colaad dambe inayna soo laabo waxaan rabaa in sida qura oo xal lagu heli karo ay tahay ismaamulkaanu inaan salka u dhigno dibadaha rag iyo dumar aynu u ololeyno si anagu aanu tirelessly u soconno aan isgaarsiino gudaha geyno jaaliyad walba iyo erga walba u yeedhna aqoon-yahankeeda suldaankeeda waxgaradkeeda rag iyo dumar then loo foodo barlamaankii loo foodo ninkii madaxda noqon lahaa loo foodo sharcigii laisku raaci lahaa constitutionka ahaa sharciga dowladda federaalka waa gaar Soomaalida halkii daraad in la baasgareeyay Puntland keedi gaar ka waa federalism mid khuseeya Puntland kale by the way waa waxaan balyeynaa walaalaha Puntland waxay ku guuleysteen aad iyo aad Cabdiraxmaan Foroole oo saaxiibkaya oo runtii aad ii soo dhaweeyay martiqaadna u fidiyay aniga iyo jaaliyaddan hadda aan ka hadlahayo inay gudi ahaan u tagaan aad baa loogu xoonsanaa markuu London joogay hadda national haysa maxaad garanaysaan Kuwait yarbo ah
waad dareemaysaa dhandhanaanku meesha soo galo war ninkan shirki iyo dhagu sheegid wax badana marka iyaga walaalaha dhamaan waxaan balyeenaynaa qolihii afka duuban jiraa baryahan burihii sii socdaa laleeyahay iyagana waan ku kalsoonahay inay shaqo ka qabanayaan waayo nimankaas waa niman aada iyo aad runtii u midaysan u hufan isu dhagaysta waxaan markaa rabaa in aan kusoo koobo kusoo gunaanado in rag iyo dumar maanta into intaa yartaa effortigaas yar ee wiilasha halka joogay ragga halka jooga ay sameeyeen baa differencega samaysa haddaynu inteena soo jeesan waan laba jibaaraynaa waan saddex jibaaraynaa waxaan dhihi lahaa marka soomaali hamidooda jaaliyadda jubbooyinku ha noolaato maamul fiican oo xaqa ha samaysato noolaada waxaan u malaynaya waxaan isugu imaanay maslaxad guud dhibaato inaan ka sheekeyno ama aan dhibaato dhalino isugu baan imaanin maslaxaddaan isugu imaanay ilaahana waafajiyo hadalka hadda kolley kuwa soo dhamaaday markaan gabagabuuska maraya waxaad u istaaga baa iska yar gaaban muhiimaddu waxaa weeye aan u istaagay meeshan waxaan ku arkay ayidaadda ismaamul goboleedka deegaanka jubbooyinka waxaan meesha u imaanay kolka aniga kulli aan unahay shaksiyadayda ismaamulka ayidaadda ismaamul goboleedka deegaanka jubbooyinka inaan ayido oon taageeraan u imaaday haddii aan waayay muddo badan wax i hogaamiyo oo leader i noqdo oo aan dabagalo oon u shaqeeyo haddaan waayo bal waxaan isku daya haddana wax kaloo haddana ka bedelan khadka inaan raadiyo haddana waxaa meeshan igu qoran 1895 hadda idinka kulley 1895 wadanka waxaa loo aqoon jiray Jubbaland waayahan dambena magaca loo bixiyo Azani iyo magacyo kale fara badan oo aad u tiro badan baa loo bixiyay kolka dadkii 1895 Jubbaland la oran jiray hadda magacii kale waa ku adkaaday waa lagu adkaaday kulli ani way ku adkaaday dhulkan taariikh buu leeyahay dhulka taariikh dheer buu leeyahay anaa ku dhashay aabayaa ku dhashay ninkanaa ku dhashay waa ina garasow waa jamaama maanta kolka Azani aniga waxaan isweydiinay waa fasir weyn labada dibiga aan haran jirin oo xayawaanna la jirin dibi baan haran jirin oo ka dibiga aan haran jirin ana kolka markaan Jubbaland leeyahay Ingiriis baa bixiyay Talyaani buu ka soo horeeyay Talyaani baa imaaday Jubbaland uu qaatay Ingiriis kala imaaday Jubbaland buu qaatay Talyaani uu dib xorriyad siiyay Jubbaland buu qaatay dawladdii Soomaaliya Jubbaland bay qaatay waxaan hadda ku dagaalamayno oo rooxada ugu dambeeyay Jubbaland bay had wixii dambe markuu waa qaban weynaanay kulay waxaa kaloo jirta aan idin sheegaya waxba yaan soo yarahay ka qabanay Jubbaland qabiilada dega ee Soomaaliyeed marasa naqaana dad in garanayna aan idin sheegaya abdikariim baa idin sheegay dad is yaqaan ayaan nahay dad dhibaato ka dhaxaysa ma nihin dad xasuudiidan ma nihin dad wada tashadaan nahay dad xeer loo iyo dhaqan baan leenahay waayahan dambe waxaa la leeyahay dadka jubbooyinka ayaan midaynayna anigu waa midaysan maxamed algamid waa midaysan anigu waxaan u haystaa in nalaba haysto aniga reewaamid anigu waan nala haystaa aygaasa sii haystaan kolka aniga dadkii la haystaaba dhaheen maxamed algamid waryaana soogama haysto maxamed ala midaynaya haddaan naga baxbaxdaan nagdaysaan oo ammaan safraan ay qaadaan aniga ninka waa heshiin problem naga ma dhaxay waxaan ii sheegayaa nin baa maalinka ku qoray warqadda waama waxaad degtaa 36 qabiil 52 way gaari doontaa 36 qabiil ayaa waama Jubbaland degan
أنا كل جدر وقدرة جبلان لكن أنا وحنا كشكين كنا جبل هاسي جبل حنا كشكين صدر إلى قبيل جبلان مدك كنت لما بجار كتبه أنا قبيلة ذي نوانا قانا دموي كين نوانا قانا تروي كين نوانا قانا عرش نوانا قانا سيدنا نكادي شيء جبلان وبيجانا وجبا فرتنا فروا ماريو لك ما عولي وامو فروا ماريو دون ما مرتمشة إلا فضل إلا يفتكش فروا ماريو هذا وبيجانا جبلان قد ما قلنا من عليها طبعا جدار كاستانين هورا كاشنا اوكي ما ذكروا حوي حقيقه waxa u soo dhawaano annaga waana la haystaa waxaan diyaar ka qonnahay cid alaale cidina naga xoreynayso nimanka afka duuban inaan qaadan waxa kaloo ay sheegay ninka reewaamo maanta halka ka maqan ninka reewaamo halka ka maqan ee gurigiisa iyo baradiisi iyo kismaayo iyo afado iyo xagar iyo بدأ لله حاجته هالك كم كان فليس منا